السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أحمد نور محمد عبد الله لما نمد الصوماليات جودها يدبدا وسلام يا دمان توضبا هدي أي شوغان نمان يهو صوماليات ميل كستود شوكتان وحي قره وقر وحان قره هينا قر معها caawa waxaan dhageystay wasiirkii hore ee reer Hargeysa waran cadde nin kasta oo mas'uul ah oo ayaga ka tirsan waxaad moodaa in isku dariiq ay wada marayaan su'aal baa marka taagan war horta marka ugu horeysa bini aadanka yaa uumay shaki ma leh ilaahay baa uumay dad walbaba meel ayuu dejiyey dhammaan Afrika oo dhan iyo ummadaha carabta dadkii qabsaday ee isticmaarka ahaa qolo walba sidii ay iska dhigtay iyo fikraddii iyadoo ay lahayd ayay ku meel martay waxa weeye talyaanina Soomaaliya ma dhalin Ingiriisna Soomaaliya ma dhalin xuduudna nooma suubi karo nin isticmaarihi dhulka nin walba meel buu degan yahay waxaan marka aan la yaabsanahay dad cilmi bartay weeye inay ka fekeraan runta meesha ay ku taalo oo ah arlada in ilaahay iska leeyahay ummadana in wakiil looga dhigay qolo walbana ay mas'uul ka tahay meesha ay degan tahay kullakum raa'un wa ay raa'in mas'uulun an ra'yatihi rasuulkeena yiri alayhi assalatu wassalaam dhulka dadku degan yahay Soomaalidu degan tahay qabiil walba meel buu degan yahay dawladda dhexe madaxdeeda mas'uul ka ah waxaad cayday ina waran cadow dhammaan garaadada dhulbahanto oo dhan go'aankii ay gaareen baad cayday waxaad cayday dhammaan reer Puntland mas'uuliyiintoodii aragtidoodii ayaad cayday waayo iyagoo madaxweynihii qaranka ee idinka laftigiina madaxweyne inii ahaa ayagoo soo dhaweynaya ayaad weerar ku soo qaadeen oo aad rabteen inay arrintu ay xumaato oo ay bashbashleeyaan laakiin nasiib wanaag raganimay suubiyeen madaxweynahoodiina si fiican bay u soo dhaweeyeen arrinta dhulkana waxa weeye annagu nacas ma nihin doqon ma nihin waryaa reer Khaatuma iyo reer Puntland waa isla dhasheen waa walaalo Ingiriisna shaqo kuma laha talyaanina shaqo kuma laha adigana bacdan abuurina ilaahay baa abuurtay waa laba qolo reer hartiya Puntland hadday far ku saarto run baa ku sheegaya Khaatuma far bay ku saaraysaa Khaatuma far haddaad saadhana Puntland far bay ku saaraysaa irhamu man fil ardi yarhamakum man fis samaa'i anugu maana dhihina ilaahay baa yiri war kuwa dhulka jooga u naxariisto kuwa sabada jooga anu naxariiste waxa weeye dhiiga ayaar ma aha idinku waxaad isku wadataan isku raacaysan habar futuud naash annagana waxaad rabtaa inaad mar walba wax ka sheegto dawladda Soomaaliyeed dawladda qaranka hanaga ceebaysanina waad ogtihiin maraakiibta Soomaalidii ka soo degaysay ayaad caburiseen oo Soomaaliya ma soo degaysaan aad tirahdeen waxa kale oo aad waxayseen magaalada koonfur oo degi weyday xamar oo degi weyday iyo koonfur oo degi weyday hooyana idinka u ah aabana idinka u ah inaysan waxba degin ayaad ku tala gasheen
waxaa weeye reer puntlandina ma khayaani ka dhaan reer khaatumana ma khayaani ka dhaan meeshaan waxgarad baa jooga waxbaanu kala garanaynaa ninkii ugu weynaa ee ugu horreeyey al-shabaab wuxuu ahaa ina gudani waxaa weeye niman yahow cagadhigta aniga siyaasooyin waaweyn baan ogahay oo afkiinna ka soo baxay hase yeeshee asluubta iyo akhlaaqda iyo garashada iyo aragtida iyo dareenka iyo soomaalinimada yaan xishood igelinaysa wax walba kuma hadli karo ha naga caayinina madaxda hana naga aflagaadaynina idinka laftigiinna madax bay idiin tahaye qiimeeya oo maskaxda dejiya oo cawdibillaysta oo ummadda soomaaliyeed waa idin wada jeceshahay walaalaha yahaatiin dadka ku xirta cagadhigta dhibaata ha abuurinina wareer ha abuurinina colaad ha abuurinina xumaan ha abuurinina dalka ha kala geynina masaajidyaa idinka buuxa waxaa weeye raaca kutubka qur-aanka ah waxaan ilaahay farin dadka haddaad samaysaan waxaa weeye garabkiinna ilaahay waa ka baxayaa waayo inta quruumo oo halligmatay amar ilaahay bay ku halligmeen ayagaana sabab u ahaa inay ishalligaan waxaa weeye shalay baan maxamed siyaad barre waxaad ku rideen saaruuna yeelay kanuuna yeelay haddaad rabtaan qabiiladii soomaaliya oo idinla deganaa inaad kulli caburisaan adeerayaalow bir kama suubsanidin xabad baad ridaysaan xabadna waa la ridayaa war is aruuriyo soomaalinimada iyo magaca iyo sharafta dhowrta ninka idinla hadlaya waa axmed nuur maxamed cabdille waxa weeye aniga dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed qofkii laga gardaran yahay ama qofkii qalad ku hadlaya waxaan leeyahay qalad baad ku hadlaysaa manayna nabciyo ogaada xaasidina kuma ahiyo ogaada inay kaba leexsaniyo ogaada inaad fiicnaataan baan rabaa berbera iyo burca iyo hargeysa dhulkaasaad leedihiin ku ekaada ciidamadiinnan halkaa geeya haddaydna geynin soo ma aha waxaa weeye adeerayaal koonfurna weji uma idna suubin oo wixii hargeysa aad ku suubiseen dhexdeeda wixii burca aad ku suubiseen wixii berbera aad ku suubiseen ciidamadii soomaalida wixii aad baabi'iseen iyo dadkii maraakiibta aad tiraadeen kaba soo degayaana hanala ka wado iyo kuwii aad koonfur mar walba buk iyo bakhda aad ku hayseen waxaasoo dhan adeer waan ognahay istartiibiyo oo soo dega run baana idiin sheegayaaye shir cid idinla yeelanaysa male waa aniga aragtideeda taas aniga iima muuqato inta la idinla soo fariisto in la ini barbaryo waayo waxaa weeye ummaddaad ka mid ahaydeen u imaada ummaddiinna haddeer u imaada ummaddiinna aniga taasaan aniga ku talin lahaa waa axmed nuur maxamed ninka kula hadlaya iska jira hadallada aad ku hadlaysaan aruursada hadalkiinna aniga hadal walbaba waa ka jawaabayaa hadal walba oo khaldan waa ka jawaabayaa ninkii ingiriis rabaa ha ugu tago England laakiin dhulkan waxaa iskale Soomaali baa leh isticmaarna waa ka baxay koonfur Talyaani ma daba socoto maxaa idinku ingiriis iyo isticmaar u daba socotaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh nabadey